الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أبا هريرة إله رالها كاهادي وحو النبي عليه الصلاة والسلام كوريين ويري لوم قما حدو حقا سفرك أرين عباد سدح مساجد موياني ومساجد حرمك يا مساجد رسولك مقالة مدينة صلى الله عليه وسلم يا مساجد مسجد الأقصى يا بركيسن walaalayaal su-aasha kale imanaysaa waxay tahay waa kuma ciddii dhistay masaajidkan barakaysan ee masjid alqudus masaajidka qudus ciddii dhistay khilaaf ayaa ka taagan laakiin dhismihiisu aad buu u horreeyey waxaana u daliila xadiiskii abaadar radiallahu canhu soo wariyey ee ku soo arooray saxiixu muslim can abi dar qaala qultu ya rasuul allah ayu masjidin wudica fi lardi awal qaala almasjid alxaraam قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وحوده يا بادر إله رالها كهذا وحن ويدي رسولك صلى الله عليه وسلم مساجد كيبا لوغو هردسي دولك وحونا ده النبي مساجد كحرام كي مقالة مكة waxaan idhi buu yidhi yaa ku xigay wuxuu dhahay masaajidka al-aqsa waxaan dhahay imise sannadood baa u dhexeeyey wuxuu dhahay 40 sannadood ee meeshii salaadu kugu soo gaadhana ku tuko maxaa yeelay waa masaajid xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa in masaajidkani uu yahay masaajidkii labaad ee la dhiso lana dhisay 40 sannadood kadib masaajidka xaramka ee barakaysan sida la og yahayna masaajidka xaramka waxaa dhisay nebi aadam calayhi salaam iyo wiilkiisii nebi shiita calayhi salaam kadibna sanado badan kadib waxaa cusboonaysiiyey dhismihiisii nebi ibraahim calayhi salaam iyo wiilkii nebi ibraahim oo dhalay ee nebi ismaaciil calayhum assalaam sidaa daraaddeed ciddii dhistay baytulmaqdeskana waxuu noqonayaa nebi aadam calayhi salaam ama wiilkiisii nebi shiith calayhi salaam iyadoo ay jirto dadka qaar ay tilmaamaan in uu dhisay wiil uu dhalay nebi nuux calayhi salaam oo loo yaqaano saam ibnu nuux ilaahay baana ogta saxda ahe walaalayaal waxaa kaloo aan idiin soo gudbin doonaa haddii ilaahay uu ka dhigo taariikh yar oo kooban oo ku saabsiisan beydkan barakaysan ee qudus walaalayaal ciddii ugu horreysay ee degtaa dhulka falastiin sida taariikhdu ay sheegayso waxay ahayd qoomkii loo yaqaanay kancaaniyiinta oo la sheego inay degganaayeen sanadadii u dhexeeyey 3,000 ilaa 1,500 oo sannadood ka hor dhalashadii nebi ciise calayhi salaam waxayna dhiseen magaaladan qudus oo loo bixiyey orshalim oo macnaheedu yahay nuur saliim magaaladii nuuraysay xilliyadaas kadib waxaa u soo hijrooday dhulka falastiin nebi ibraahim calayhi salaam isagoo deegaanna ka yeeshay halkaa waxaana uga dambeeyey wiilkiisii nebi isxaaq calayhi salaam iyo wiilkii uu awowga u ahaayee yacquub calayhum assalaam dabadeedna waxaa la wareegay gacan ku haynta magaalada qudus faraacintii ka talin jirtay dhulka masar kadibna waxaa qabsaday camaaliiqda dadkii loo yaqaanay ilaa uu ka furutay nebi daawud calayhi salaam iyo reer bani israa'iil oo uu hogaaminayo kolkuu nebi daawud calayhi salaam geeriyooday waxaa uga dambeeyey wiilkiisii nebi sulaymaan calayhi salaam isagoona dib u dhisay masaajidkan qudus markaasuu ilaahayna ka baryey subxaana wa tacaala 3 arrimood 2 ka mid ahna waa la siiyey ta kalena waa loo diiday baan odhan karnaa oo la siiyey mid ka mida nebiyadii ilaahay uu soo diray oo ah xabiibkan muxamed sallallahu calayhi wasallam nebi sulaymaan calayhi salaam wuxuu ilaahay ka baryey boqortooyo aan isaga ka hor iyo kadib aan cid hore la siinin iyo cid ka dambaysa aan la siin doonin waana la siiyey arrintaa waxaa kale oo la siiyey xukun waafaqaya xukunka ilaahay waxaa kale oo uu dalbaday nebi sulaymaan inuu ilaahay dembigooda dhaafo ciddii siyaarata ama booqata beydkan maqdeska iyo masaajidka barakaysan ee qudus arrintana waa loo diiday isaga waxaana la siiyey beddelkeedii nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam markuu geeriyooday nebi sulaymaan calayhi salaam ayay reer bani israa'iil islaayeen waxayna u kala baxeen 2 dowladood oo kala ahaa
dowladdii boqortooyada Israa'iil oo dhanka waqooyi ka aasaasantay, iyo dowlad kaloo la dhaho boqortooyadii Yahuuda oo koonfur ahayd iyaduna, waxayna gacanta ku haysay taasi masaajidka oo loo yaqaanay haykalka ay Yahuuddu taqaano. dabadeedna waxaa soo weeraray reer bani Israa'iil dowladihii Baabilyoonta loo yaqaanay oo gubay gebi ahaanba haykalkii reer bani Israa'iil, waxayna qafaasheen reer bani Israa'iil, waana xilliga taariikhyahanadu u yaqaanaan qafaalashadii Baabilyoonka. kadibna farisiyiintii ayaa jebiyey Baabilyoontii, waxayna Yahuuddii ka furteen qafaalashadii ayagoo u oggolaaday inay dhistaan haykalkii labaad, waxayna dhiseen sanadkii 516 miilaadiga ka hor ama dhalashadii nebi ciise ka hor, ayagoo ugu magac daray boqorkii Yahuudda u talinaya xilliga oo la dhaho Xayruud al-Kabiir. haddana reer bani Israa'iil markii ay qooqeen ay waasheen ayaa Ilaahay u soo diray dadka xoog waaweyn. waxaa qabsaday Gariigii oo uu hogaaminayo Alexander the Great, Alexander al-Maqdoni ninka loo yaqaano. isagana waxaa uga dambeeyey Roomaankii oo ka talinayay Qudus iyo Falastiin muddo aad u dheer. xilligii la soo diray nebi ciise calayhi salaam, nebi ciise wuxuu uga khudbadeeyey reer bani Israa'iil masaajidka Masjid al-Aqsa, isagoo oo markaa ugu khudbadeeyey inay Yahuuddu ka soo laabtaan gaalnimada oo ay raacaan jidka toosan ee Ilaahay subxaana wa tacaala. hase ahaatee Yahuuddii way ka biyadiiday arrinka, wayna ka gaalowday diintii nebi ciise iyo nebi muuse iyo diintii nebi moxamed dhammaantood oo dhanba. 300 oo sannadood kadib dhalashadii nebi ciise calayhi salaam, waxaa kala qaybsamay Roomaankii gacanta ku hayay Falastiin oo kala noqday 2 Roomaan, Roomaanka bariga ee loo yaqaano Bisantiniyiinta iyo Roomaanka galbeedka. waxaana haystay magaalada Qudus Roomaanka bariyeed ee Bisantiniyiinta. intaas kadibna waxay magaaladii u bedeleen magaalo Kristaan ah, waxayna dhiseen xilliyada kaniisadan loo yaqaano kaniisatul qiyaamah ama kaniisada qiyaamaha. sanadku markuu ahaa 614 miilaadiga ayaa dowladdii farisiyiinta oo Yahuudda kaalmo ka helaysay waxay qabsadeen Qudus, waana qisada Ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay suuratu Rum ee uu leeyahay Roomaankii waa la jebiyey, ghulibat الrum fi adna al-ardi wa hum min bacdi ghalabihim sayaghlibuun. Roomaankii waa la jebiyey, laakiin jebitaanka kadib dib ayay u soo ceshan doonaan oo uga adkaan doonaan farisiyiinta. kadibna Roomaankii ayaa dib u soo noqday oo gacanta ku qabsaday magaaladii Qudus. xilligaana nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la soo diro, xilligaa waabu joogayba sallallahu calayhi wasallam. xilligii khaliifkii labaad ee islaamka al-amiir Cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayaa la furtay magaaladii barakaysneed ee Qudus, kadib markii ciidankii Abaa Cubayda ibn al-Jarraax radiyallahu anhu amiinu haadihi al-umma uu weerar ku qaaday magaalada Qudus iyo Roomaankii haystay. kadibna waxay Roomaankii oggolaadeen inay magaalada furaheeda u dhiibaan amiirkii mu'miniinta ee Cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Cumar al-Faaruq. Ilaahay raalliha ka ahaadee Cumar ayaa soo baxay isagoo saaran dameerkiisii, isaga iyo mawlihii u shaqaynayay Saalim loo yaqaanay oo marba mid ka mid ahi u kala degayeen dameerkaas ay ku safrayeen. ugu dambaynna Cumar wuxuu galay magaalada barakaysan ee Qudus oo soo gashay gacanta muslimiinta markii ugu horreysay, wuxuuna qoray axdiga caanka ah ee loo yaqaano cahdu Cumariya ama axdigii Cumar. Cumar ibn Khattab radiyallahu anhu wuxuu dhisay masaajidkan oo ka dul taagay goob bannaanayd oo ay ku taallay dhagaxii laga duuliyey ama naga dheelmiyey nebiga sare looga qaaday sallallahu calayhi wasallam. masaajidkii Cumar dhisayna wuxuu ahaa mid ka samaysan loox iyo tiirar yaryar oo qaadayana ku dhowaad 1,000 ruux oo muslimiin ku tukanaysa halkaas ama musalliyiin ah. masaajidka waxaa la weyneeyey xilligii saxaabigii Mucaawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu canhuma, isagoo dhagax iyo jaajuur ka dhisay masaajidka, waxaana la waasiciyey dadkii ku tukanayay musalliinta ahaa oo la gaadhsiiyey ilaa 3,000 oo ruux.
dabadeedna dowladdii umawiyiinta ayaa si fiican u daryeeshay masaajidka kan, gaar ahaanna khaliifkii loo yaqaanay cabdulmalik ibnu marwan oo xilligiisii la weyneeyey masaajidka, iyo xilligii ka dambeysay wiilkiisii waliid ibnu cabdulmalik ibnu marwan, kaasoo dhisay dhagaxan laga duuliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ka dul dhisay koofiyadan dahabka ah iyo sidoo kale koofiyadda silfarta ah ee loo yaqaano qubbat asalaasil. tan iyo intaas laga soo gaadhayo sanadkii 1990 miilaadiga, waxaa magaalada barakaysan ee qudus ka talinayay muslimiinta. xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa qabsaday magaalada qudus saliibiyiintii kiristaanka ahayd oo weerar saliibinimo ah ku soo qaaday goobtaasi, waxayna haysteen muddo gaadhaysa 80 sannadood, ayagoo ka dhistay xilliga masaajidkii qasri ay ku qaabilaan dadka iyo meel ay ku carbiyaan oo ay ku tababaraan fardahooda. sanadku markuu ahaa 1187 ayaa geesigii muslimiinta ee salaaxuddiin alayubi uu go'doon ku qabtay saliibiyiintii haysatay masaajidka barakaysan ee qudus, kadib dadaal badan oo ay soo halgameen geesiyadii muslimiinta ee cimaadudiin zinki, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye, iyo wiilkii uu dhalay ee nuurudiin maxmuud raximahullah, ninkaas oo dhisay mimbar uu ugu talagalay masaajidka barakaysan ee qudus. kadibna waxaa ku guulaystay furashadii masaajidka qudus salaaxuddiin alayubi raximahullah, isagoo soo qaaday mimbarkii uu dhisay nuurudiin maxmuud oo dhigayna masaajidkii barakaysna ee qudus. muslimiinta ayaa ka telinaysay dhulkan falastiin iyo qudus ilaa laga soo gaadhayo bilowgii qarnigii 20aad, markaas oo guumaystihii ingiriiska ee khiyaanoolaha ahaa wasakhiyo nijaaskii ingiriisku uu khiyaameeyey muslimiintii carabeed, isagoo ugu ballan qaaday yahuudda inuu waddan uga yagleelayo dhulka kan falastiin. haatan iyo maanta yahuudda ayaa xoog ku haysataa dhulka barakaysan ee falastiin iyo masaajidka sidoo kale muqaddaska ah ee barakaysan ee baytilmaqdeska, ayagoo ku doodaya ama dood iyo xujo ka dhiganaya in dhulkaas ay awaawiyaashoodii hore ay degganaayeen. haddaba su'aal kale ayaynu isweydiinanaa, yaa xaq u leh magaaladan qudus ee barakaysan iyo guud ahaan dhulkan falastiin? ugu horrayn, xujada yahuudda waa mid been ah, sababtoo ah muslimiinta ayaa falastiin ka talinayay muddo gaadhaysa 1300 oo sannadood. dhanka kalena reer bani israa'iil marka la isku daro xilligii ugu horreeyey ay yimaadeen ilaa iyo xilligii ugu dambeeyey inta ay ka talinayeen may gaadhaynin xitaa 1 qarni oo keliya. talabaad, yahuudda waa la lacnaday oo ilaahay ayay ka gaaloobeen ayagoo laayay nebiyadii iyo rusushii loo soo diray, kadibna waxay xarifeen kutubtii loo soo waxyooday iyo xitaa kutubtii kiristaanka waxay xarifeen oo way beddeleen. ta saddexaadna, yahuuddan maanta nooli maaha reer bani israa'iil dadka soo jeeda ee waxaa loo yaqaanaa sahaayino, oo waa dad hadafkoodu yahay inay maamulaan adduunka iyo caalamka iyo xoolihiisa ay gacanta ku dhigaan. mana aha dad diin ku dhaqma ama diin haysta, ee badankoodu waa mulxidiin, waa atheist iyo agnostics weeyaan, ilaahay ka gaaloobay oo col iyo cadow la ah ilaahay subxaanahu wa tacaala. ta afraadna, cidda keliya ee xaqa u leh falastiin waa muslimiinta, oo nebigoodii xabiibkii ahaa muxamed sallallahu calayhi wasallam laga dheelmiyey magaalada qudus, gaar ahaan masaajidka baytilmaqdeska. sidoo kalena ay noo tahay meel muqaddasa sida nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu noo tilmaamay, waxayna u dhigantaa muqaddasnimadeedu magaalada barakaysan ee maka iyo magaalada kale barakaysan ee madiinatu rasuulillah. ta shanaadna, yahuudda haysataa falastiin macnaheedu ma aha in loo ogol yahay ama raalli ay ka yihiin dadka muslimiintu guud ahaan, ee waxa ay dowladaha muslimiintu ku jiraan tamar yari iyo dacfi
kusoo habsaday xilliga kan ee maaha in loo ictiraafay taaka ka mid ah dhulka barakaysan ee Falastiin ama dalool yar oo keliya oo u dhexeeya labada ilkood ee bani aadamka dhul gaadhiya looma ogolaanin loomana ictiraafin ee marka aanu awoodaysano ayaanu ka qaadinaa kana qabsan doonaa suni coshan doonaa dhulkii barakaysnaa ee Falastiin iyo beydkii ilaahay ee baytulmuqaddas ilaahay baanan ka baryanaa subxaanahu wa tacaala in sida ugu dhaqsaha badan in loo furto dhulka barakaysan uuna nagu sharfo dadkii furanayeen oo naga mid dhigo hada wallahu aclam wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu